maqlay amal qaybta burtile ayaa mar kale idinkoo wax ka tabanaya la wareegteen arrintaas maxaa ka jira Mr. Carab walaal arrintaas amal hawl baana dhex taala ma garata waa garta hawsha maxay tahay in dhex taala hawshan dhex taala waxa weeye akoom lacag noogu jidho oo bangiga yaallo oo annagu aanu dhiganay oo ku sawirannahay oo maamulkiisa gacanta ku hayno anigu dee qof akoom uu dhintay adigu akoom waa ku leedahay waa dhici karta kaberiga ma ogtahay systemkii wax loo dhigtana nin walba wuu yaqaanaa ma garan adigu dee 3 sano waxaan leenahay war akoomka iyaga noo fura oo lacagteedana siiya ama cidda nagu haysata sharciga ilaahay isku kaayegeeya haddaad idinku nagu haysataan iyo haddii cid kale nagu haysato waxaa jira dad badan aan fahansanayn akoonka iyo wuxuu quseeyo marka bal guud ahaan akoonku muxuu quseeyaa muxuu ku saabsan yahay arrintan akoomka walaalo waa akoom annagu aan kabaniga ka furanay lambar adigu soo warigaa kabaniga kamaad furan lacagtan annagaa ku shubanay annagaa ku sawiran annagaa haddii ilaahay idinkeeda leeyahay dee adigu waa garan kadhaa systemka bangiyada wax loo dhigto waa fahmi kadhaa ma garan aad iyo aad laakiin macnaha lacagta maqaab waxaa jirta in la sheego gabar dhawaan muddo lacag loo aruurin jiray oo reer Puntland ahayd oo dabadeed ku geeriyooda waddanka Djibouti lacag loo aruurinayay inay lacagta macnaha ay tahay arrintaas maxaa ka leedahay arrintaas qaabka u dhacday bal dadka u faahfaahay aan fahansanayn oo mataqaanaa aan arrinta la socon Mr. Carab walaal lacagtu si kasta ku timaado laakiin waxa saakal isku haystaa waxa weeye akoomka yaa meesha dhigtay yaa wax ku shubtay yaa gacanta ku haya yaa sideeda akoom horta yaa iskale oo furtaa sideeda la isku hayaa ma garan waa gartay laakiin waxaa jirta in maxkamadda sare ee Puntland sida wararku sheegayaan ay labada qolo oo wax isku haystaan dhinaca gabadha dhalay iyo idinka gabadha abtiyaasheedii ay fasaxday in lacagta la saaro idinku qudin arrinta ka soo horjeesateen dabadeedna dhawaan amal marka la qabateen idinkii amal maxaa arrintaas faahfaahin guud naga sii maxaa maxkamadda sare Puntland iyo idinka iyo labadii dhinac wayna dhex maray walaal lacagtan horta gabadhan loo aruuriyay anoo aftilaan ahayn gabadha iyadii bay ahayd anagaana ku haynay gurigeeda ku xanuunsatay dhowr jeer baa dibadda la geeyey hanti badan baa gashay markii dambena dadka islaamka baan waxaan sameynay waxaan ka aruursanay lacagtii anagoo haddii ilaa idinkeeda leeyahay gabadhii dawadii aan rabnay inaan ugu talagalnay dhimatay ilaahay idinkiis markay dhimatayna dee lacagtii maadaama dee qofta 3 ilaa 4 jeer dibadda la geeyey oo hanti badan ku baxday dee waxaan go-aan ku gaaray maadaama dee annagu aan kusoo baaba'nay qarashkeedii iyo nidaamkeedii iyo hawsheedii adigu ninkaas la yidhaahdo in qureex oo amal gaalkacay haysta waa lacagtii nagu qabsaday ninkan hadda gabadha anaa dhalay haddii ilaa idinkeeda leeyahay naguma uusan qabsan isagaa ka keenay baadiyaha iyo meelahaas adigu maxkamad kasta iyo meel kastoo la geeyana isagaa wuxuu lahaa hal xukumo oo laaluushii lacag ku bixinaya ma garan waa gartay marka intiina idinka asaga ma wada hadasheen ninka gabadha dhalay maadaama aad xididkiin oo aad qaraabo dhowtiin oo gabadha asaga idinka aftiyaartiin asaga gabadhi dhalay arrintaas dhama weyda idinku walaale waxaa jiray wax hore oo ninkan dhex yaallay baa jiray haddii ilaa idinkeeda leeyahay dee ninkaana anagu waxna nagama dhexayn waxna iskumaanaan qabsan waxa nagu qabsaday oo meesha dhibtaan oo dhan geystay oo lacagta corruptionka ku wada oo shalay subax garoowe raggi kala tegey oo maxkamadii culayska ku saaray oo lacagta laga soo saaray meesha waa ninka la yidhaahdo qureex waa gartay maxkamadda sare ee Puntland marka maxay soo saardaa iyadoo ay amartay maxkamadda sare Puntland ninkan hadda dhalay waxbaan dhalay oo gaalkaayo darajada koobaad baa ninkan warqad u qodhay ma garan waa gartay warqadaas darajada koobaad markay u qodhay qaybta racfaanka warqadii aragtay waxay tiri kiiskan hal dhinac weeye kiis xukun laga geli karana ma ahan maxkamadda darajada koobaad waxay ku amaday kiiska inay fudho oo labada darafba ay si cadaalad ugu garnaqdo ma garata waa gartay idinku goobjoog ma ahayn markaas anigu goobjoog maan ahayn markii hore oo darajada koobaad ay xukumaysay kiiska warqadii halka dhinac ahayd oo tii racfaanka oo kasoo horjeeday baan anagu gacanta ku haynaa oo kiisku inuu hal dhinac yahay ee ka hadlaysay haddii ilaa idinkeeda leeyahay dee meeshana waxaa socday iska maaragtay iska boob iyo maaragtay balaayaa ka socota adigu maxkamadaas oo keligeed oo hal daraf ah waxaa la geeyey garoowe culays badan iyo nidaam badan iyo waxbaa lagu saaray waxyaalo kale lagu sheekeeyey xukun baa maxkamadda sare kasoo saadhaa la yidhi ma garat xukunka muxuu ahaa marka
xukunkaas anagu xukunaan goobjoog ka ahayn ma ahayn laakiin waa xukun laleeyahay lacagta ninka loogu xukumay ma garata ninka gabadha dhalay idinkuna gabadha abtiga oo ahaydeen marka idinku maxkamadda ma u sheegateen in lacag badan ay ka gasho kharasha ay ma ku doodeen waa qoran yihiin waxaan dukumenti iyo nanaan bay leeyihiin wax hanti badan oo dayn ahoo dad badan baa hantidoodii ku maqan tahay oo joogo oo haddii ilaa idinkeeda lidal iyo dibadba lacagta ka bixinayay annaga hantidan waa qoran tahay dukumenti iyo nanaan bay leedahay waxaan isku afgaran weynay oo haddii ilaa idinkeeda leeyahay in hantidan dee qoftaan maandaaba iyada hanti badan oo xaq bilow aadniya la geliyey xaquuqdan iyada ilaahay ummadda islaamkan loogu soo dhiibay dee xaquuqdeed in laga baxsho maahan anagu sideeda cid kale oo aan ka yeeli karno lacagtaa iska qaadata ma jidho sharciga islaamkuna ma ogola qofku waxa uu ka tago shareecada islaamku waxay ogashahay in waxa horta isaga uu leeyahay laga saara ma garata waa gartay waxaa jirta amal xarun ganacsatee ognahay waa station business public ah marka maxaa kalifin ayada la qabsadaa amal xarumaheedii mataqaana aad qabataan oo sida waxaa kalifay ninka la yidhahdo qureex amal waxay garan weyday horta meesha yaa wax dhigtay haddii ilaa idinkeeda leeyahay adigu maxaad meesha dhigatay ninkaan haddan lacagtan ugu haysta waxaa ku shiran meesha maxaa kaa yaalla adiga maadaa wax noo dhiibtay miilmahaagaa wax noo dhiibtay haddii ilaa idinkeeda leeyahay dee qofka systemka waxaa loo dhigtaa la yaqaanaa ma og tahay waa garta qureexaas quraxa dad baan fahansanayna muxuu ka yahay amal waa ninka maamulaha gaalkacyood haysta oo la yidhahdo qureex gaalkacyood marka hadduu qeybtaa jooga xagga gaalkacyood saan ognahay amal waa business kala duwan branchyo kala duwan qaybta gaalkacyood maxaad uga dacwashadii ugu gudban weydeen qaybta buurtile maxaa ayada kalifay walaal qaybta gaalkacyood iyo qaybta buurtile labadaba waa joognaa ma garata waa gartay marka isagiina garow buu jiraa iyo ciidankiisii oo dee maxkamadii iyo ninka bushgareynaya hadda isagoo garow uu ku sugan yahay ma garata waa gartay haddii sidaasa wax u jiraan walaal aad baad umahadsan tahay hadda xaaladda guud amal idinkaa gacanta ku haya soo maahan amnigeeda guud ahaan ka warrama anagu shirkad dee waxaan ku codsanaynaa anagu shirkadeedii weeye annagaa wax kule haddii ilaa bangiyo akoomaan ku leenahay mana rabno inaan xadgudub iyo magaciisa ku samayno waxaan ka codsanaynaa walaalaha iyo kabaniga iyagaas lacagta akoomka iyaga ku jidho oo annagu aan leenahay oo aan dhiganay oo mas-uuliyad mulkiyadiisa aan leenahay adduunka waxaa ka jira waxa la yidhaha yad bayad annaga ciddii ugu haysata sharciga ilaahay baan rabnaa inaan kaga baxno meel kale boob iyo magaciisa cid iska dhici ka dhaana ma jidho annagu waxaan ka codsanaynaa amal akoomka iyaga inay noo fasaxdo oo haddii ilaa idinka lacagteeda ayna siiso ciddii annaga nagu haysatana sharciga ilaahay in aan kusoo dhaweyno meel kasta ay joogto